صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa barnaamijkeenii duruus ramadaaniya, waa xalaqadeenii 23aad. xalaqadan waxaan kaga hadli doonaa in bisha barakeysan ee ramadaanka inay tahay bil ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomadiisa naarta uu ka xoreeyo, sida xadiiska nabiga uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika fi kulli layla. nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomadiisa ayuu naarta ka xoreeyaa habeen waliba oo bisha barakeysan ramadaanka ka mid ah. marka dadka naarta laga xoreynayo ilaahay ha inagu daro. marka in naarta laga xoreeyo macnaheeda waxay ka dhigan tahay in qofka isaga abadkiis uusan naar uusan galaynin ka dhiganta. waana runtii qof liibaanay qofkaas, sida ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala faman zuxziha cani annaari wa udkhila aljanna faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur. marka qofkii laga fogay naar isla markaana jannada ilaahay la geliyay qofka isaga wuu liibaanay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa la xoreeyay allah inagu daro. waxyaabaha dadka naarta ay ku galaan waxaa ka mid a dembiyada iyo macsida ayaa ka mid a. marka ilaahay in muxuu ahaa dembigeena uu dhaafo oo muxuu ahaa uu kugu daro dadka la xoreeyay waxay u baahan tahay arrin dadaal runtii u baahan waaye oo ilaahay in laga bari u baahan oo muxuu ahaa qofka muslimka ah rabo inuu dadaalo. maxaa yeelay ciqaabka ilaahay waa wax aad iyo aad u daran. waxa ilaahay uu bixiyo ilaahay uu bixin waxa ugu weyn jannada ugu weyn. marka in jannada ayada aad gasho muxuu ahaa waxyaabaha ku hareereysan waa wax waliba oo nafsada ay jeceshahay oo muxuu ahaa macaasidii iyo foolxumadii. marka waxaa la rabaa qofka muslimka inuu imtixaanka isaga uu ka gudbo si uu kaga mid noqdo dadka muxuu ahaa ilaahay uu sheegay rasuulka uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu wa tacaala galaya jannadiisa ee naarta laga xoreynayo. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa naftayda iyo tiinaba ilaahay kaga rajeynaya inuu nagu daro dadka naarta lagu xoreeyo. wajazaakum allahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.